Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato reeboore ha noolaadaan wada jirku ha noolaado qabyaaladu ha dhacdo cadaalad darradu ha dhacdo musuqmaasuqu ha dhaco wadani ha noolaado waxaan u malaynayaa maanta wax la yidhaahdaa meeshan ma taalo kelmaddii ahayd ishii bugtaay ku bikaaxso ama quduquutoy ku quuso ayaa maanta kulmiye ku filan waxaan leeyahay kulmiye waxaa og tihiin barnaamijkiisa inuu yahay kulmihii hore barnaamijkiisii waxba kamay beddelin qabya ma tirto waannu qabya tiraynaa bay yidhahdeen wixii hore ma qabya tiri karta qabya ma tiri karto waxaan leeyahay waa kulmiye musuqmaasuqa iyo cadaalad darrada iyo dulmiga uu sameeyey ee hore hal xaaraanihi nirig xalaala ma dhasho kulmiyaha cusubna waa tii hore unbuu halkeedii maraya waddani baa dalka simaysa cadaalad ku maamulaysa sinaan ku maamulaysa reer boorame waxaan leeyahay nabadgelyada sidaa sharafta leh ee karaamada leh ee isku soo baxdeen ee u muujiseen fartiinnana waddani ugu hiiliya si aynu cadaalad iyo midnimo iyo sinaan u helo si ay Soomaaliland xornimo u hesho oo ictiraaf u hesho fartiina aynu ugu hiilino waa maalin farxad leh waa maalintii inoogu dambaysay kaambeynkeenna ololaha inoogu dambaysay waxaa inoo hadhay oo qudhaata maalinta codka oo qudhaata taasoo ku xigi doonta guusha waddani ha guulaysto cabdiraxmaan cirre ha guulaysto maxamed cali ha guulaysto beddeluu ilaahu khaatumadaayada khayr nooga dhig sow maaha maanta maxaan soo khatinnay guushii baan soo khatinnay xisbiyadii baan soo khatinnay hadalkoogii ugu dambeeya kaambaynkii baan soo khatinnay waxaannu wanqalaynaa guushii waxaan u dalbaaddegaynaa 14-kana guusha walaal kulmiye beeshii harraadday heesooga ma maqasheen beel baa harraadday waxbaa engegsan waxbaa qaxaya waa waxa innagana ma maqasheen heeshteen hadalka waxaa laga bixiyaa xagga eebbe hadalka qofka bini'aadankaa soo dhex maraya xagga eebbaa laga bixiyaa waynaa la jiraa waa waddani guulaystuhu waa waddani yacni eryadeega maantana khatimaddii baan joognaa waan soo khatimaynaa 14-kana waan dalbaaddegaynaa waa guul insha allahu guul kii khayr leh ee waddanka khayr ku hoggaamiya waxaan soo gabagabaynaynaa 7 sane ee qabyaaladda iyo xumaanta iyo dhibta uu ku haya xisbiga kulmiye eenu soo adkaysanaynay ayaan haddii ilaahay ka dhiga soo gabagabaynaynaa waa gabagabo waa guul maanta waxay noo farxada soo gabagabaynta bixitaankii iyo ka guulaysigii xisbiga kulmiye taageerayaasha aad baan u salaamayaa waxaan salaamayaa oo kale madaxda xisbiga waddani musharax madaxweynaha cirro iyo maxamed cali aad baan u salaamayaa maanta waxaad muujiseen maanta awooddiinnii muruqiinnii waxaan leeyahay guul waddani baan leeyahay waxaan leeyahay reer boorama ama reer awdal waxay muujiyeen guush bay maanta khatimayaan way soo khatimeen kulmiye waxaan leenahay kulmiyaa quustay guulaysta inta aynu u soo camirnay ee ay awdal isu muujisay maalinta u dambaysa kaambaynka Soomaaliland waa si qayr caadi ah oo aynu leenahay quraanjo ay ku quuso awdal waa waddani soo maaha haddii alla